waxaan leenahay soo dhawaada iyo duco baan soo raacinayna waxa kale oo ku darsataan hawsheeda iyo culeyskeeduna waa idin dambeeya imma kada aynu bilaabayno qoslaynay ka bilaabi doontaa hawshan culeyskeedu waa hay'adaha filaya qaranka inay ugu culeys badan tahay sababta ay ugu culeys badan tahayna waxay saameynteeda cid walba gaadha saameynteeda ayaa cid walba gaadha sida daraadeed waa meelaha ugu culeyska badan leh waxaad kulliba aad u baahan tihiin haddii dadka nimankan ciidamada iyo dagaalka galaa madfuuun ma raadiyaan ee anti missiles-na way raadiyaan waxa iskaga difaacaan ummaddu waxay ku soo dagaalayaan marka ummadda idinku soo waajahan wixii aad iskaga difaaci lahaydeen oo afkiina iyo adinkiina iyo dhaqankiina iyo kalsoonidiina intaaba waa laydinka runtii dee fadhiya intaasaan ku odhanaya komishanka doorashooyinka qaranku waad ogtihiin waxa weeyaan hay'ad runtii cariiqa oo aad maaragtay ilaa 2002 ka soo bilaabanta doorashooyin aad u fara badan oo madaxweynayaal leh oo golayaal deegaan leh oo baarlamaan leh intaasibana iyaduna way soo qabatay isu dhiib bay ahayd waxaan filayaa ani Cabdiraxmaan oo kale halkan markaanu ka bilownay guri yar oo wada jabano wada darroorimeeya inaanu ku bilownay maantana xafiisyada quruxda badan leh waxay ka mid tahay kobca ay hay'addu inta ay samaysay shaqaalaha maalintii la wareegay laba qof bay ahayd marka laga reebo darawalada iyo shaqaalaha maantana de ma sha Allah dhibaamada sidooda u dhisan oo iyaguna jira wixii kale hadhowbaynu si gaar ah aynu xafiiska isugu sii runtii wareysan doona waxa sidoo kale iyaduna inoo dhisan oo kaga baxaya waxyaalaha aasaaska iyo buddhiga u ah komishanka doorashooyinka qaranka marka laga tago shaqaalaha waxa weeyaan diiwaangelinta markii aynu diiwaangelinto meel badan ka soo bilowday waxay xafiis dhameystiran oo qalabkeedii oo meelaha lagu majeerto komishanka doorashooyinka qaranka ay ka mid tahay waxa u dhisan xeerarkoodii iyo shuruucdoodii ay iyaguna u dhisan marka insha Allah wixii kale waynu halkeedu gaari doona waxaan doonaynaa soo dhawaada shaqaalahana aad bay runtii u mahadsan yihiin muddada ay joogeen wiil iyo gabadh oday iyo mala islaamaba lihiin dhamaantiin aad baa runtii idinkuna aad u mahadsan tihiin waxaan leenahay marka hore soo dhawaada commissioner waxay ahayd hawl cusub oo hor leh oo ma garanaysaa ay baa idin bilaabatay Cabdiraxmaan isagu hore u joogo doorashana waa soo qabtay hawsha culeyskeeda iyo waxay leedahayna wuu yaqaanaa wuu soo maray laakiin waxa weeye waqtigiiba ka duwan yahay oo taaqudheedu oo imika farsamooyinkii iyo wax badan oo aad arki doontaan oo isbedelay ku soo kordhay ayaa jira haddii ahaan lahayd xaggii shaqaalaha iyo haddii ahaan lahayd xagga qalabkaba taana waan mar dhow baan intusi doonaa aad arki doontaan insha Allah biidnillaahi alkariim xil weyn oo leedin eegayo caalamka iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan shilata waad ogeedeen oo doodii ka baxaysay BBC-du commissionku bay ku saabsanayd wax kale laga ma hadlaynin shilata jimci marka siday u weyn tahay deebaad ka garan kartaan hawsheedu siday u culus tahay iyo hawsha commissionka u taalo iyo waxay qaban doonaan hawshana commissionadu waad iska garanaysaan oo waxa loo baahan yahay waa dhexdhexaadin inaad u xisbiyada u dhexdhexaad u ahaataan taana way idin ku ducaynaynaa in Ilaahay idin fududeeyo idin sahlo baan Ilaahay ka baryaynaa shaqaalaha waa u mahadnaqaynaa muddadii aan wada shaqaynaynay runtii si fiican baan u wada shaqaynay dad aad iyo aad xilkas iyo karti u leh ayay yihiin sababta waqti adag baan soo maray oo 3 operation oo kala daran ayaanu deegalnay oo inta badee dad aan shaqo wada galay ahaayeen marka aad bay ugu mahadsan yihiin sidii xilkasnimada ahayd ee mas'uuliyaddu ka muuqatay ay nolol shaqeeyeen waxaan rajaynayaa in komishanka cusubna ay insha Allah ta'ala sida ay si ka fiican ba ula sii shaqeyn doonaan shaqaalaha qaybo badan baa jira oo dhisan oo secretary staff oo haday noqoto operations manager baa jira registration manager baa jira DG baa jira waxa jira director of finance and admin baa jira cashier baa jira accountants baa jira waxa way qayb walba oo de hay'ad lahaan lahayd way inoo dhisan tahay doorasho fiican baa dhacday si wanaagsan baynu shaqaynay annagu maanu faanka malihin waxaan nimankan hor fadhiyaa shaqaalaha haddaan runta la sheegina ma wanaagsana idin yaala halkan idin jooga
xafiis dhisan tiim tababaran aqoon leh gaalo laga maarmay oo wixii la soo maray anigu takaleen hadlaya waxa weeye shaqaalaha jooga idinkoon kala qaadin komishiga shaqaalaha jooga haddii ilaahay loo sheegayo ku soo dhawaada meel dhisan baa timaadeen halkaa ka sii wada waanu idin leelaynaa in yar hadda inaga qalday idin dayn mayno waayo waanu invest garaynaa halkan waxa aad maanta u timaadeen waxa weeye commission awood leh aqoon leh waa aragnimo leh dad tababaran oo u bislaaday shaqadan baad u timaadeen isaguna geestiisa halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyihii hore komishanka doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ka waramay waxyaabihii ay qabteen muddada 5 sano ay xilka komishanka doorashooyinka ahaayeen waxa maanta sharaf noo ah 5 sanadood kadib in komishankii doorashooyinka qaranka ee afraad uu xilkii ku wareejinayo komishankii shanaad ee qaranka oo taasoo ah sunnaha iyo hanaanka sharci in 5 sanadoodba mar la bedelo komishanka Somaliland sharaf ay noo tahay inaan idinku wareejino maanta xilkii qaranka ee komishanka haddaba muddadaas 5 sanadood ahayd waxa komishanka doorashooyinka ay soo qabteen shaqooyin fara badan oo u noqday dhaxal kuwaasoo ay suurto geliyeen komishanka iyo shaqaaliha oo ahaa garbahay ku duulayaan waxaanu soo qabanay oo maanta idinku wareejinaynaa diiwaangelin codbixiyaal oo casri ahayd oo hore Afrika iyo dunidaba ku cusbayd isla markaana Somaliland u soo jiiday sumcad fiican iyo fagaarayaasha adduunka iyo maxayday caalamiguba ay u soo jiiday sumcad iyo wanaag laba qaybintii kaadharka waxa idin diyaar ah in ka badan 700,000 oo codbixiye oo maanta haysta kaadharkoodii oo diyaarayna doorashada soo socota ay ka qayb galaan waxaanu sameynay habraaciyo shuruuciyo xeerar xoojinaya hanaanka socodka komishanka iyo doorashooyinka waxaanu qabanay doorashadii 2017 taasoo ay kormeerayaashii caalamiga ahaa iyo kuwii maxalliga ahaaba qireen inay ahayd doorasho aan hore loo arag oo wanaagsan ugu dambeyntii waxaanu tayeynay oo kor u qaadis ku sameynay hanaanka diiwaangelinta oo idin diyaar ah oo ay ka wakiil yihiin inamadan idin hor fadhiya iyo Ibraahim oo halkaa fadhiya oo idin diyaar ah isaguna oo laga shaqeeyay isla markaana la sameeyay tijaabooyin lagu tayeynayo kuwaasina aynu ku wada guuleysanay diyaarna oo ah inaad furuhun ku rogtaan miisaaniyaddu komishanku ku shaqeeya waa 2 miisaaniyadood labada miisaaniyadood ku shaqeeya mid waa ta sanadla ah midna waa ta doorashada ama diiwaangelinta waxaan halkan idinku gudbinaynaa oo idinku wareejinaynaa account-yadii miisaaniyadaas accountka dahabshiil ee lacagta qalaad ee adag waxa idinku jira $551.51 accountka dahabshiil ee gudaha waxa idinku jira isagana $707 waa account-yadii oo dhan baan idinku wareejinaynaa accountka 174 waxa idinku jira $279 bilyan 511,701 shilin Somaliland accountka ku xiga oo ah Dar es Salaam Bank waxa idinku jira $2,208.02 accountka bankiga Somaliland oo external waxa idinku jira $2 milyan ayaa idinku jirta waa ka bankiga dhexe ee externalka ah
kaasoo doorashadii markaanu qabannay ay ballantu ahayd inay dowladda somalilandna lacagtii soo shubto diiwaangelinta lagu geli lahaa qoladii inaga caawin jirtayna soo shubto markaa dowladdan cusub madaxweynaha muuse biixi cabdi wuxuu accountkaa ku soo shubay $2 milyan way idinku jirtaa maanu isticmaalin accountka 204 waxaa idinku jira 37 milyan 811 ayaa idinku jirta oo Somaliland accountka 222 waxaa idinku jira 1 bilyan 542 waxaa intaa dheer in trimesterkii ugu dambeeyey oo ahaa October, November, December shaqaalaha iyo expenseskiiba idinku jiro oo idin dhayay isaguna oo ilaa 350 milyan kaanoo idin yaala wax deyna idinkagama tegayno balse waxaanu idinkaga tegaynaa intaas oo account oo lacag ku jirto marka good luck waanu idin ducaynaynaa wax dardaaran waxaan jecel lahay dhammaan dhinacyada daneeya arrimaha doorashadu inay u soo jeedino dardaaran la xidhiidha arrimaha doorashada iyo waayo aragnimadayadii 5 sannadood aanu baranay waxaan doorashooyinkii Somaliland u baahan yihiin kow in xisbiyada qaranku ay isu yimaadaan oo ka tashadaan in doorashadu dhaqso ugu dhacdo waxaa loo baahan yahay laba in si degdeg ah loo dhammaystiro wixii shuruuc doorashooyinka ah la xidhiidha shuruucda waa inay mar kasta ahaataa mid dhammaystiran saddex waa in dhammaan dhinacyada ilaaliyaan sharciga oo isaga lagu dhaqmo waa in la fahmaa in qabsoomidda doorashada qaranku uu yahay tiir dhaxaad muhiim ah dalkan waxaanu maxayday ku soo gabagabaynayaa dardaaran xaggiina ah waxaanu idinka tegaynaa haddaanu nahay komishinkii afraad komishinka shanaad uga tegaynaa kow isku duubni waxaan anagu shaqadaa cuslayd kaga soo baxnay teamwork isku duubni baanu kaga soo baxnay laba sirtoo la ilaaliyo inaad sirtiina ilaashataan oo aanay bannaanka idinka bixin saddex in hawshanu way culus tahay hadiya habeen heegan u ahaataan oo aad ku shaqaysaan in ay shaqada aad priority ka siisaan oo shaqadu ka horeyso shaqadiina gaarka ah salaan kadib marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad leh inoo suuro geliyey inaynu halkan isugu nimaadno ama hawshan inoo qabsoonto inoo suuro geliyey in qarankeennu mar walba horumar iyo tallaabo sii socota uu ku jiro marka ilaahay baynu u mahadnaqaynaa mar labaadka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ama bogaadinayaa komishanka qaranka xilka maanta nagu wareejinaya insha allah horena waa looga marakacay oo xusbiyo iyo dowladiba waa ka marakaceen annaguna maanta markhaataanu ka nahay inaa runtii commission shaqo wanaagsan soo qabtay oo soo shaqeeyey oo shahaadooyin ku qaatay aad tihiin waxaan is leeyahay soomaalidu waxay tidhaahaa ninkii ilaahay xoolo la maago dadkeedu siiya sidaa sheegteen in shaqaalahan dee ilaahay idiin keenayo wax badani ay sidaa idinba qirteen halkaa idinka yimaadeen anigoo ka wakiila komishanka cusub waxaanu ilaahay ka baryaynaa rajaynaynaa ballanna qaadaynaa inta aanu dee bini aadan annagu ku nahay inaan tacabkiinu khasaarin
soo wadeen in aanan khasaarayn in aa ku yidi diilootaan shaqada insha allah aanu qabanno ku faraxdaan inaanu haddii alla ka dhigo ka lixaad ilaahay ina daayo shahaadooyinkii kuwa ka badan ku qaadano oo sii gudbino marka waxaan leeyahay insha allah waxaanu runtii dee qarankuna oo ku mahadsan yahay noo soo xushay annana aanu u soo guntanay inaanu halkii ka sii qaadno oo wanaag badan aanu soo kordhino oo aanay dub uga dhicin insha allah haddii alla ka dhigo waxaan kelmad odhanayaa shaqaalaha commissionka shaqaalaha commissionka waxaan leeyahay haddii alla ka dhigo dee ilaahay isu keenkeen amar ilaahay baynu isugu nimi waana wada shaqayn doonaa waxaanu insha allah rajaynaynaa inaanu tartan la galno qoladan commissionkano shaqaaluhu beri dhow aa nacdaan qoladan aad ba waafanayseen aa nacdaano aanu dee tartan la galno iyagu imika naga dhexeeya marka waxaan leeyahay aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay ammaanta iyo howlkarnimada iyo kalsoonida nalaga keensiiyey annaguna haddii alla ka dhigo sida aanu sheegnay waxay dee soomaalidu mahmaha ama ducada ugu weyn waxaa ka mid ah ilaahow aqoonna ha nagu cadaabin eexana ha nooga tegin waa arin weyn oo soomaalidu markii hore ku dhaqmi jirtay macnaheedu waxaa weeye dee wixii garasho aada garan weydo ilaahay dee kugu cadaabi maayo dembi malo dee garan weyde laakiin ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inaanu eex nagaga tegin eex inaanu nagaga tegin oo aanan eexan oo aanaa idinka idin kala eexan oo aanaan qaranka u kala eexan oo aanaan xusbiyada iyo hawshaynu wadno u kala eexan sidii aanu ku dhaaranay iyo sidii aanu usoo maray inaanu dhexdhexaad iyo cadaalad hawsha ku wadno ay dhab nagu tahay oo aanu awaamirta ilaahay fulino aada iyo aad baan dhammaan idiin salaam bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weeye doorashada maanta dhacday waxay ahayd mid aanaan isku ogeyn waxaa noo yimid khamiistii guddidii dhexdhexaadinta waday ee ka shaqaynaysay inay isku keenaan xisbiyada iyo noona gogol xaadhaan sidii aanu hawl qaban lahayn commission oo qaran nasiib wanaag nasiib darra soore waxa dhacday doorasho gacan ku rimisa oo aanan diyaar u ahayn oo saaka u bilaabantay waan fadhiyey maan ka bixin oo laakiin waxa weeye dee waa majority baa la noqdo oo nalaga batay marka saasay ku dhacday ilaahayna waxaan uga rajaynayaa qarankan iyo dalkan in uu ku soo dabaalo xasilooni iyo nabadgelyo laakiin dee qof shaksi anigu personally shakhsiyan uma diidani ninkaa odayga ah ee cabdirashiid rifaaci guddoomiyaha noqday laakiin waxa weeye dee yaanu waxa khasooreena cidaanu waxa khasooreena waxay ahayd saddexda xisbi qaran shacib weynaha reer Somaliland sidii markaa xisbiyadii qaranku aanay raalli ka ahayn dee waxay noqonaysaa wax aad u adag markaa ilaahay waxaan nooga rajaynayaa un khayr markaa saasay wax u dhaceen waa mahadsantied de waxa weeye horta wax xaqiiqood haysaa la sheegaa laakiin arrintaa anigu ma hubo inay madaxtooyena soo dhex gashay inay cid kale influence ku lahayd ma hubo ma caddayn karo waxaanad caddayn karina lama sheego laakiin waxa weeye dee xubnaha meesha joogay sidaasay ku codeeyeen marka inay iyaga ka timid iyo in iyaga lagu soo qasbay taa anigu ma sheegi karo waxba kama jiraan cid aan ii ballan qaaday guddoomiyenimo may jirin guddoomiyaha waxay ahayd inaan u dooranno waayo aragnimo aqoon iyo karti inaan ku dooranna bay ahayd xubinta la doortay waxa weeye dee wixii ilaahay keena mooyaane waanu eegi bal wuxuu siduu noola shaqeeyey imaka horta sharciga xeer number 2021 waxaa ku qoran guddiga commissionka doorashooyinka qaranka waxay ka kooban yihiin 7 xubnood
gudahooda iyagaa iska dooran karaa xubinta iyagaa iska dooran kara guddoomiye iyo ku-xigeen markaa shalay khamiistii markii aanu nimid odayaashii iyo culimaadudiinkii iyo baac mushtarigii intii somalilan danaynaysayba ay na soo hor fadhiisteen ee aanu ka ballan qaadnay aynu axdi gallay inaanu sugno oo aanaan dooranin inta ay hawl ka soo dhammaynayaan riyali may dhicin markaa de waa saasaan u leeyahay waa doorasho gacan ku rumaysaa commission baanka isku haystaa marka doorasho diyaar noqonaya khilaaf baa jira in commission kalsooni aan lagu qabin adigu aad ka sii mid ahaato dareenacay ku abuuraysa horta gidigaya maaha commissionka aan kalsoonida lagu qabin waxa weeye xisbiyaduna way sheegeen intaanay kalsooni ku qabin idina waa ogtiin intaan kalsoonida lagu qabin markaa waxa fiican bal inaanu de horta bal dib isugu noqono aanu eegno sidaan hawshan u fulin lahayn laakiin dee bal waanu eegi doonaa runtii dee intii loo xaqsoorayey ee loo qabanayay hawsha weli way kala maqan yihiin bal markaa wax ka soo baxa waynu eegi doonaa